ما شاء الله أصحابتي إذا جعل بركان سان قروح ذا بندحي سنة soft كاس وأي خضارته كجرتو haddii aad rabtina ogaad sida loo sameynayo fadlan daawo videoga bilow ilaa dhammaad waa alaabta ramadaanka miiska quruxda kaaga dhigaysa asxaabteedaan jeclahay waa bur si raqiis oo fudud loo sameeyay haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka noo samee dan gambalaalka riix saad u noqoto daawadaha koowaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabteeda halkan waxaan ku sameysanaynaa alaabta aan burka dhexda ka gashan lahayn waxaan isticmaalaynaa chicken iyo qudaar barbarooni laba nooc iyo basal cad hadeertaan chickenka waxaan sameeyay si yar yar u soo jarjaray sidoo hadhada burka iga dilaacinin waana soo dhaqay maasha Allah si fiican iskaga dhaqa chickenka waxaan isticmaalaynaa barbarooniga jaalaha iyo midka orange-ka midka gaduudka iyo midka orange-ka iyo basal cad oo si yar u soo jarjaray hadda waxaan ku darayaa huruud iyo qudaarta qalalan chicken masala iyo buttermilk kalaasaan rabaa inaan isku dhex geliyo oo chickenka ku marinate gareeyo muddo 30 daqiiqo waxaan rabaa markii oo chickenka hadhowda la cunaayo maasha Allah inaba caadi la noqonin oo dhadhankiisa ka saxan tahay marka insha Allah cusbada aad ku darso qiyaastaada maadaama soon u rabno cusbo badan ma fiicna marka cusbada iska yareeyo haddana cusbo yariis la ku daray marka spiceska iyo chickenka maasha Allah si fiican iskugu qasa iyo buttermilk aan guriga ku sameystay daartid banaanka ku soo gada kartaa maasha Allah wax walba gurigaaga ku sameystaa fiican chickenka marka si fiican isku dhaxgelina asaga iyo spiceska dan waan daboolaa muddo 30 daqiiqo inuu marinate gareeyo waxaa fiican 30 daqiiqo haddii ugu badan tahay haddii ugu yar tahay maxaa la dhahaa 10 minutes 20 minutes laakiin damo oo kula yaalo marinationka damo oo chickenkaaga macaan noqonayo insha Allah marka mar hore sameysta iska dabool xataa overnight waa la sameyn karaa fridge-ka la gashanaysaa marka hadda burka qasanayna asxaabteena chickenka noo marinate gareysmanayo waxaan ku soo shubay bur iyo cusbo iyo saliid intaas ku dhaxgelinaa marka asxaabta waxaan rabaa alaabtan inaan biyo ku qaso ada daarta caano ku qaso kartaa wax ukuna kuma darin wax sokorna ma ku darin marka hore si fiican isku dhaxgelinaa hadhoodina kadib gacanteeda ku soo xashaa doolaha idmo burka marka daarta waxa ku darsan kartaa ukun caano ku qasi kartaa choice-kaada iskale laakiin hadda waxaan ka rabaa burka foolyada camal marka insha Allah daartan waxa sameynayaa si fiican qaadada ugu qasaa hadaa rabtina marka hore qaandada iska dhaaf gacantaada soo dhaqay ku qaso maasha Allah si fiican waxa rabaa oo bur oo soft ka soo baxo oo na jilacsan waxyariis hadda biyo u celinaa waxa rabaa inuu jilac noqdo burka hadhowda marka hagaajina inuu idibin marka asxaabteeda isku soo noqonayna burka si fiican u soo xasho waa kaasa gacantaasna u dhaxgalal rabaa soft kaaseeto marka asagana waa dhigeena burka hore ma laga fidiyo asagana waxa rabaa inuu muddo iyo inta chicken karsanayo oo asna ii soo qamiiro maasha Allah wax leeyahay taman ugu dar laakiin inuu kala baxaan rabaa insha Allah asxaabteedu waxaan dabka soo saartay digsi waxaan ku soo shubay saliid yar markay xoogaa soo karkartay chickenki iyo caanaha iyo spiceska gab ku soo siiya waxaan rabaa chickenkan wax biyo ma lagu daraayo
waxaa rabaa oo keli inuu halahan ku karto daboola u dhiiba hadda insha Allah. chickenka inuu si fiican u karo asxaabe oo maraqaaneed oo hadda wata le ku qalalaan rabaa. marka kadibna si kala u hagaajinayna insha Allah waad ka heli doontiin asxaabteedan jeclahay insha Allah. hadda ka dambe waxaan soo badinayaa fiidiyoyaasha oo cuntooyinka ramadaanka maadaama ramadaanka noo socdo oo wax yar nooga dhiman yahay afura qurux badan oo fudfudud saxuur oo fudud maasha Allah. asxaabteeda fiidiyoyaal qurux badan waa soo baxayaan stay tuned insha Allah. nala socda subscribe-ka noo saara gambaleelkana on ka dhiga. hadda waxaan ku daray cusbo yar wax kale loo macelinayo waayo spiceskiis iyo alaabtiisa dhan waa qabiya hadda. marka waxaa rabaa marka laan daboolaa ilaa oo ka soo qalalo markoo soo qalala isku soo noqonayna insha Allah. chickenka waxaan ka rabnaa inuu cheesy noo noqdo oo jiido markii dhowda la goosto maasha Allah. cheesy aduuna ku darsanayna asxaabteeda. hadda waxaan sameeyay qaandada oo blue band ka rabaa inay ii dhalaasho kadib waxaan ku soo daraa hal qaando oo bur ah haddii oo butterka isticmaalayna aan hadda blue band isticmaala waxaad isticmaali kartaa subag laakiin subaga maxaa la dhahaa subaga caadiga oo subaga lo'da beel waa saxda ku samaystid ama butterka caadiga oo cusbo la'aanta. hadda kan blue band waay cusbo yar oo leeyahay waxaan ku soo daray hal qaando iyo wax yariis oo bur ah burka iyo blue band kaas dhexgelinaa kadib waxaan ku soo shubayaa caanaha kiskis yar ku soo shubayaa galaas caanaha. waxaan rabaa inuu couscous iga yeelanin insha Allah. haddii aad baash oo ukunta lagu qaso wiska hadaa haystid kaba sii fiican aan hadda ma soo qabsanin qaandadaas li ku bahalkeena aan ku qaso si fiican u qase couscous kaaga yeelanin insha Allah. alaabta burkan iyo blue band iyo caanaha iyo cheese-ka hadhow chickenka ku darsanayna insha Allah. maasha Allah. hadda waxaa ku soo dar gabal cheese ka isticmaala waa mozzarella cheese. waxaan ku soo daraa black pepper filfil. waxaan rabaa dibka u gaabinaysaa cheese-kaas ilaa uu ka melt gareeyo. maasha Allah. hadda waxaan ku soo daray asxaabteeda mix herbs qudaar qalalan oo oregano iyo rosemary iyo isku jiraan. marka asxaabteeda cheese-keena markaaneeto wuu noo melt gareey wuu dhalaale caanaha cheesy hadda noqdeen
إن شاء الله باشميل كانت أنا دور من هجاجنا وكجرا باستوين كقدر صدا مركا دي gacanta baa ka dhaafin hadii kal dhulku ka digsigu ka qabsanaya oo kaaga dhigaya maasha Allah burkii wixii dhan waa isku baaba'een hadda waxaan sameynaynaa qudaarteeni iyo chickenkeena shab ku siinaynaa maraqii oo soo hagaajinay sooski maasha Allah ku dhaa alaabtan marka waxaan sameynaynaa burkayna korka gashaan gudaha ka gashanayna insha Allah markay qabowdo ayaga isku amaanayaan hadda qoqoyaan yar waa laakiin markay xoogaa qabowdo way isku soo aruureysaa insha Allah haddaa rabto waxaa ku darsan kartaa hadda kabsar caleen tuun waxaa jecesha qudaar alla qudaarta jecesha aa ku darsan kartaa hadda fiilinkeena waxaa waaye waa ready maasha Allah burkii waxaan soo sameeyay waan soo fidiyay asxaabteeda waxaan ku jaranaynaa waxaa waaye baaquligaas waxaa rabaa bur yar oo round ii noqdo culaysna maaha qafiifna maaha asxaabteeda marka waxaa soo qaadaya qaando oo qudaartii oo soo hagaajinay iyo sooskii kadib waxaa soo qaadanaysaa biyo yar geesaha biyo ka marinaysaa waayo waxaa rabnaa burka inuu isku dhago biyaha ma ka badinaysa fartaada le biyo soo gelinaysaa geesaha ka marmarinaysaa insha Allah waxaa waaye afur yar oo qurux badan oo fudud maasha Allah afkii aad isku keenaysaa marka asxaabteeda sidee ay kaaga furan hadhoodi saxan oo bur yar leh kor ka saaraysaa marka insha Allah si kale oo hagaajinaynaa markay saan u dhameeyno waxaan sameynaynaa alaabo kala marinaynaa insha Allah waad ka boga doontiin burka outside inuu crispy ka noqdo la rabaa oo gudahana soft ka noqdo insha Allah marka biyahaas u marinaysaa waa laabaysaa ku dhaw isku dhajinaysaa muhiimadda waxaa waaye inuu isku dhago oo qudaarta gudaha kaaga kugu jirtay ka soo daadanin haddii aad rabto waxaa soo qaadan kartaa fargeeto asaas ugu juqjuqeynaysaa geesaha ugu qabanaysaa laakiin gacantaada waa ku dhagaa wax biyaa wax saliid kaama galaysa andhay hadhoodi maasha Allah sidoo kale le sameynayna biyo le geesaha kama marinaysaa kadibna waa isku dhajinaa tartiib kale adi
ما شاء الله waa soft gacmo ku qabsanaya meel bur yar leh saar insha Allah markaan soo dhameeyo xabadu dambeys waa ka soo wareegi koowaad marka sidaas leh ku soo dhameena insha Allah burkeena dhan qaybta kala sida kala hagaajisanayna aad ku soo noqonayna marka asxaabteeda insha Allah waa ka boga doontiin burar badan waa soo socdaan oo ramadaanka oo ma sha Allah oo cajibi doono kaasa fargeetada jagjag ku siinaysa muhiimadda waxa waa inuu burka isku dhago bura biya maris marka ma fuqaayo asxaabteeda halkaan waxaan ku soo hagaajiyay dhowr saxan oo burki ahaa waan soo dhameeyay baaquligan waxay u jirto 2 xabo ukun iyo rootiga shiidan rootiga guriga ku hagaajista aniga wili waa baqan dacbo hadan shiide marka ukunta 2 xabo waa ugu yaraanaysa 2 kala ku soo dare waxaan sameynaynaa waxaan dib gareenaynaa ukunta kadib rootiga gelinaysa rootiga kor wuxuu ka yeelayaa qababac crispy oo ka noqonaa ma sha Allah burka wuxuu ku soo baxaa bur macaan badan asxaabteedu insha Allah casri ugu dhigay ciyaalka waad ka heli doontiin aad u macaan dhadhanka anigu huba asxaabteeda aan jeclahay hadan waxaan soo qabsanay qaybteena labaad waa isku sii dhadhajinaa soo ay kala fuqin burkan waxa waaye qafiif waaye oo gacmo ku siibana tartiib leh oo ka dilaacin saas leh u galgalina insha Allah burkali oo rootiga inta badan ka jajafaysa halaha ku qabsada kugu filan ما شاء الله أصحابتي سيدا سانكسو دمينا وإنو يسليد إن شاء الله أصحابتي قيبت كوبات إنه كاميرا دومانيسا أمالينا كرا النقطة وحانكو سوري قيبتين اللبات saliida iyo saaidka karkarin waa burka gudihiisa ceerin waaye saliid oo dhaxdhaxaad dabka dhaxdhaxaad uu ku fiican yahay hadii kala dhaxda ceerin uu ka noqona tartiib kale markuu dhinaca ka guduto dhinaca kale u gadi ilaa kalarka aad jeceshahay ama golden ku noqdo ama brown tiqa ku noqdo sida alla sida jeceshahay markuu ku noqdo ka saaraysa ما شاء الله ونفورا يا بركان ما شاء الله صوب الليبت الودرين ما شاء الله وح وكاد دادنا إلهي أبورت ماله سليد كدبو يا وجدنا أصحابتي السليد كركرس معهن سليد كركرس هاسكي شوفن إن بركو وحوكا نقونا جديد سعيرين أصحابتي ذا ما شاء الله قيبتين اللي كسود رده سليد مركبي كل شهر وقابنا يا أديك اللي دحد عيرين كنقونا أصحابتي ذا انت سوها جاجينا قيبت كلا كل لاتي
ما شاء الله أصحابتي كلركاas quruxda badan oo ii noqda asxaabe wax ka daadanayna ma ahan wax oo saliid oo kugu soo boboodaysa ma ahan insha Allah qurxan ku dhaa asxaabteedan jeclahay ما شاء الله تبارك الله أصحابتي sidaan quruxda badan oo ku soo baxay waad ka hesheen filaya very juicy waa gudihiisa maxaa waay macaan oo chickenka qoyaan u leeyahay qaleel ma ramadaan kelima la samaysan karo ciyaalka iskuulka aadaan guridi kartaa baaqulgooda casriya ka dhigan kartiin haddii aad videogan ka heshay like garee comment ka soo bixi u share garee asxaabtaada kale ehelkaa kale intaa videogan videos kulmeen waxaan iga tagaa asxaabteeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo video dambe insha Allah